وبركاته كسو دوادا جانل كينا كوبcinta garaadka caruurta walaashii Raxmo Xuseen maanta xarabna inaan ka wada hadalna jadwalka caruurta qaybtii labaad insha Allah waxaan idin sharaxayaa sidaan u sameyn lahayd caruurta jadwal ugu sameyn lahayd number 1 waa inuu maalin kasta horta jadwalka socda maalin kasta sida caruurta ula qabsado bisha koowaad bisha labaad xogaa la qabsana waa idin bariyaa isbuuc hore ama laba isbuuc hore inta wax ku baroobaysiin caruurta idin ka hor imaado qashinka ku darina adkaysta lahaada hal bil adliisa laba bil bisha labaad ku shaqeynaysa waa laakiin wax maalin ka soo taagan ma sameeysa iska jarkii ma raacday qofkii raac wuxuu helayaa isbuuci qofkii oo raaci waayna wuxuu ma helaa halo ooyo dib ma laha halis xanaajiyo dib ma laha waa la qabsanaya adi adkaysi lahaa ku celceli waa wax oo maalin kas u qoran bisha isbuucan waxa u qoran unuga u dir isbuuc kale ka bedel kan kale ku dar jirka inuu la qabsado maskaxdana la qabsato caruurtana iska yartaa anaka inaan ku adkaysano waa talada koowaad idin siina talada labaadna waxa weeye in caruurta la fariisato oo dhahdid hay maxaa sameyn kartaa laba nusha hada dhahay guriga maxaa qaban kartaa waxba lagu dhahayaa ama wax oo ugu fudud meesha dhig laba ama laba isla labada soo ka bixi kara labadana ka bixi kartaa laba marka u horeyso inta caruurta la kulmo aad soo dejiso markaas sidaas markaas wixii ku wada tashatiin saas qoraalka u socdo haane adkayso insha Allah dad badan ay soo codsaday inaan kii hore copy u soo sameeyo kaas waa ku soo diraa waa idin soo diraa insha Allah email koos ku qoran igu soo dira just waxa dhahdaa schedule-kii kaabiya u baahanay ii soo dir intaas la ii soo dheh insha Allah ana kaabi ku soo diraya just caruurta u sharax waxaan waxa weeye guriga isla deganahnay waxa dhan waa isla leenahnay wax kasina isla qabano waaye maxay baraysaa adeeg ka qaadayaan maxaa kala maskaxda ugu kordhaysaa maxaa kala organize noqonayaan maxaa kala adi cawnaad wad helaysaa maxaa kala way ku tababaranayaan marka jadwalka maalmaha wax badan ay ku tarayo hadii ka soo qaad alaabta dhaqaalaha alaab sida adig u dhaqayso uma dhaqi karaan marka alaabtiyo sideedii hadii meesha lagu saaro ha xanaaqin adkaysigeeda lahaa dib ma lah way baranayaan bakeeriga hadii laga jabiyo dib ma lah bakeer kale iska soo gada tarmuushka hadii laga jabiyo iska soo gada inkastoo tarmuush jibstaada ani la ciyaara taasna marka adkaysiga la caruurtu iska yaryihiin ama xataa haday weeyihiin marka hore oo u horeyso waxa ka wada deemayeen haday teenager yihiin wax barasho u socoto barashada ku adkayso laakiin ma dhaqaaqeen muhiimada waxa weeye ma dhaqaaqeen wixii ma qabteen intaas muhiim ma hana sida anaha qaba hada u qabanan iska bax ma aha taas waa seerabaan sida ay ka rabaan waa saas alaabta anu dhaqmo dhaqayso radiga tagaa seerabaan sirsa anu ufraad baxiga tagaa seerabaan taasna waxba kuma helayaan hadhoona caruurta adkaysi ma lahaanayna adduunkaas ma la qabsan karaan oo jaamacadaha way ka soo cararayaan oo shaqooyinka dib markay ka soo cararayaan way ka soo carar dib markay arkaan hadhow waxay noqonayaan ilmo markay dibka arkaanba ka cararo waxbarasho adkaysi karin shaqadan u adkaysi karin marka intay yaryihiin waa idin barayaa tababar caruurta adeeg ka qaadan insha Allah waxaan kala rabaa inaan idin sheego asxaabta cashiradeeda la socoto oo 3 isbuuc amal waan ka maqnaana insha Allah hawada laakiin midin ilowna soo noqona insha Allah hadii nool yahay sidaas iyo 3 isbuuc ka bacdi amalan akas email soo diro da su'aal qabtiin hoos ku soo qor wixii kaamana insha Allah Facebook way la soo xiriiri kartiin subscribe raya garanaysiin like raya garanaysiin share garaya good job alright assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh